jaaliyada ka soo jeeda Maakhir State ee ku dhaqan dalkani Koonfur Afrika gaar ahaan magaalada Johannesburg ayaa ugu baaqay maamulada Puntland iyo Somaliland inay faragelinta ka daayaan maamulka Maakhir State waxayna sheegeen jaaliyadu in maamulkooda uu simaado dowladda federaalka Soomaaliya ayagoo sidoo kalena ugu baaqay maamulka Maakhir State iyo dhammaan jaaliyada reer Maakhir inay ka qayb qaataan horumarinta deegaanadooda iyo sidii maamulkooda u noqon lahaa mid wax badan u soo kordhiya bulshada ku nool gobolada Highland Sanaag iyo galbeedka gobolka Bari waxaana warbaahinta la hadlay gudoomiyaha jaaliyada Maakhir State ee dalkani Koonfur Afrika Axmed iyo xubnihii ka soo qayb galay kulankani jaaliyada Maakhir State ee waddanka Koonfur Afrika muddo badan waxaa jiray loolan siyaasadeed oo aad u xaq daran oo ka jiray gobolada yada deegaanka gobolka Sanaag iyo gobolka Highland iyo galbeedka Bari waxaana ku loolamiyay maamulo nabadgelisa oo wax dhiba mooyee aan dheef laga faa'iidin damqasho awgeed waxaanu kulan ku yeelanay halkan muddo socday waxaanu caawa go'aansanay inaanu baaq u soo jeedino jaaliyada reer Maakhir meel kasta ay joogto oo ay wax ka qabtaan arrimahan cakiran ee baryahan dambe soo food saariyay gobolkeega waxaan kaloo rabaa halkan inaanu markaanu sarnay waxaanu go'aansanay inaanu dhaliil u jeedino maamulada dinadriska ee aan walaalaha Somaliland iyo Puntland oo aad muddo inay istaraatiijiyad ka dhigteen inay kala qaybiyaan bulshadaas iyagoo dana siyaasadeed kale waxaan halkan baaq ugu direynaa maamulada diriska nala ah ee Puntland iyo Somaliland deegaamada reer Maakhir ee gobolada Sanaag iyo Highland iyo galbeedka Bari in badan dhibaato fara badan ku hayay haddana amoodoba in maartay wixii iyaga dhexdooda ahaa inay u soo rareen taasna mid aan u dulqaadan karno maaha waxa kale oo aan halkan baaq uga jeedinayaa laftarkooda odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo indhaadgaradka dhalinyarada iyo haweenka iyo dhammaan ummadda reer Maakhir meel kasta ay joogto inay shir isugu yimaadaan sida ugu dhaqsiyaha badan oo la isugu tago waddanka gudihiisa loogana tashado aayaha iyo future-ka dadka dhulka reer Maakhir sidii waxaan halkan aga soo jeedinayaa baaq reer Maakhir State inay hurdada ka kacaan in ay la talaabo qaadaan gobolada kale ee Soomaaliya aysan hoos tagin Puntland iyo Somaliland ay gobolkooda wax u qabtaan sida xagga waxbarashada ay ka dhisaan xagga cilmiga waxbarashada caafimaadka waxyaalo badan everything wax walba u baahan yihiin dadka deegaanka ku nool oo lagu yaqaan nabad dad aad u nabad badan labadan maamul ee hareeraha ka jiraan ee midna ka tirsaneen naafac aysan ku qabin dib mooyaa Maxamed Xasan Ibrahim Madka TV-ga caalamiga ee Somali Channel Koonfur Afrika